qorayo niciimoy adiga yaa saxaabtaada waxa idin sheegaya commenti ku dhiigle ha ka qaadanina ficil sababtoo ah commenti ku dhiiglayaashu waa 19 18 17 subaxdii iskool leh oo $2 ama $0.5 ugu jiro comment kaliya qori kara qofkaas marka uu iska kacaaya waxbuu soo qoraya just wax reply loo soo galo hadduu rabo diintu ka saaraya oo wuxuu ku leeyahay gaalaaba tahayba because just wuxuu rabaa reply in loo soo galo astaghfirullah walaal gabadha gaal ah oo broke ah waxba ma aragtay ha u qaadanina because waqtigoodii ku jiraan waxa xasuustaa xaafadeena markuu dagaal ka dhici waayo uu dagaalka islow noqdo inaan 2 dhagax soo qaadi jirnay reerkaana dhagax baan ku dhufan jirnay 2 reer oo isdagaalsan oo kala aamusay oo ognahay inay gafuurka isku taagayaan labadan bari taan fikro dhex fariistaa waxaan dhigi jiray wallaahi labadan reer way isdagaalsanaayeen laakiin sibay u kala aamuseen this is not possible kuwa anigoo kaleeta oo ilaa leeg oo 17 iyo 15 iyo 16 inta oo aan dhigi jirnay dhigeyst labada reer inay isdagaalaan ahayd weekendigan doo isdagaali waayeen waa inaan wax sameeyno waxaan qaadan jirnay 2 dhagax oo waaweyn reerkan dhagax baa ku dhufan jirnay reerkaas dhagax baa ku dhufan jirnay guriyeenan kala aadi jirnay hadhow baa habartii oo la daqray labadii gabdhood oo waaweynaa isjiiday wiilash yaryaraayo isdilay odayaashiyo bistoolada isku wato isxabadeeyay balaaya dhacday baan subaxdii soo kici jirnay markaasa la reerkii reehbal baa isbaabiyay hooyada ilaah ku naxariiso qabriga ku waasicay hooyada dad kale u sheekeynayso dhees reehbal waa isbaabiyeen laakiin ma ogatay marka waa kuwiyo taleefano wata waxa meeshan ku jira kuwiyo taleefano wata weey wallahi waxa meeshan ku jira waa kuwaasoo taleefano soo qaatay markaas halkan maanta oo dhan waxa la leeyahay heblaayo ninkaagii naag buu la socday gabdhaha yaryar oo masaakiinta ah oo ayagoo yaryar intay guursadeen nolosh ma aragtay ay u dhaqaaqday highwayga u kortay baa la rabaa noloshooda in la kala daadiyo because ayagu waxba ma hayaan subaxdii dugsi quraan baa sugaya suuratul cimraan buu ku jiraa waxba ma ka baran kitaab ma kala furin 12 maanta $0.5 commentigu dad waaweyn oo dhali kara commentiyada ugu jiray halkaas maanta oo dhan wuxuu qorayaa heblaayo ninkaagii naag buu la socday markaas ay leedahay war waxa nin raga ma gaarin walaal waa 15 iyo 14 wax ku soo qoraya waa 15 years old $0.5 loogu shubay wuxuu jiifaa buurtin le mid wuxuu jiifaa ceeldheer mid wuxuu jiifaa baadiyaha laascaanood mid wuxuu jiifaa baadiyaha hargeysa mid wuxuu jiifaa arabsiya mid wuxuu jiifaa maxaa la dhahaa Jabuuti magaalooyin ka sokeeyo tuulooyinka ah mid wuxuu jiifaa qaxootiga dhagaxley baa lagaaga qorayaa qof ay fooynuusi u shidan tahay oo solar ku jarjar garaysanaya taleefanka baa wuxuu ku soo qorayaa ninkaaga waa kugu daadsantahay jookare iblaayo kugu daadsantahay ninkaaga saanuusani waa qof solar ku jarjar garaysanaya taleefanka ilaahay baan ku dhaartay solar buu ku jarjar garaysanaya xataa ma haysto taleefanka jarjar uu gasameysto odagii habarta 6 bilood intay lacag aruuriyeen bay waxay soo gadeen solarkiiba waxay ku jaaj garayeen taleefanka uu ku hadlayo commentii ka qoray uu soo xaday walaalkiis ka weyn oo hurda iska leh oo subaxdii shaqo u kala lahaa saa subaxdii wuxuu soo kacayaa walaalkii weynaa bateriga taleefankii oo ka dhacay mise maamadii hurdu ka soo siibay oo islaan dibadaha aaday ayadoo wadanku nabad yahay oo ay qaraabo qansax yihiin si uu wiceyso 7 bilood bi $300 u soo gaday mobile yar oo Tecna ku soo qaadatay mobilkii xumaayo Tecnaha ahaa bay intay dhagayaro dhagta isaga shubtay bay gamacday feedkii ayadu ka soo xada ilaahay baan ku dhaartay ayadu ka soo bixiyay waa 14 years old baa noloshaada kaaga waramaya oo comment ku dhiigle markaas maanta dhaw caleeda allah hebelo magac soo bedeshmiya mihiblaay ma aha walaal waa ilmo 13 jir oo dhagax lay dugsi quraan ka dhigta ilaahay baan ku dhaartaa lagugu dhaarto waxa commentiga ku qoro ku caaya waa 13 years old dhagax lay dugsi quraan ka dhigta baahidka na gaarsiinayay inta soo sano annaga laftigeena ina isla yaabno Soomaa annaga laftigeena wallahi ina isla yaabno Soomaa inta waxa hiidka na gaarsiinayay waa 13 years old dhagax lay school ka dhigta how you feel my friend how you feeling my friend wallahi billahi tallahi been ba umalaysa 3 isino ilaahay weeye
dumarka Soomaaliyeedna adduunka waxay ugu necab yihiin sharqanta caruurta 10 jirkii baa lagugu soo dhisayaa lagu leeyahay fiirsa life-kan inta taleefon loo dhiibo suumaanta dhuxu kuu soo qoraya you are crazy woman you are this wixii uu kaartoonka ka soo bartay Tom and Jerry intuu ka soo xafiday Mickey Mouse intuu ka soo xafiday buu halka kuugu soo qoraya you are crazy you are madhasho you are bitch you are this you are jugta culus you are sharmuuto maanta oo dhan commentigaaga waxa saa u yaacaya cayba saa u yaacaysa isleeda walaal qofka ma daalmay soo daalaya waa 10 years old ma 10 jir baa daalay he have the all the world energy my friend adduunyada energy yaala baa soo ku jiray ma daalaya horta waa 10 sano waxa ku caayaya ilaah baan ku dhashay inta dhasho ba hindhiso ku dhali kartaa waa ka soo dhacaya ilmaha ku caayaya hatta ma qaan gaarin hooyadiis baa taleefanka u dhiibto tiri joker sii daaw 9 caay uu maqlay buu ka soo caayaya aniga commentiga leeyahay ma caay hadda waayo waxa la yiri mahmaha shida laba qof baa haysa anu dibkii waa iska daayay dad ma karbaasho ummadii waa nabadgeliyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri ummadeyda ii nabadgeli marka maadaama ummadii anu aan nabadgeliyay oo cidna aan karbaashin cidna aan maagin wallahi aniga cid maagta ma arko been ma fiicno mogtahay dhawaanahan la ima maagin laakiin laba arrin baa u soo galay live-kan inaan ka hadlo laba arrin oo social media saaid uga soo badanaysa labadan bari reeraha in la dumiyo la rabo qoysaska la duminayo wallahi intaas u soo galo inaan gabdhahaas fariin inta uga faro